أنت الحق ذو قدم أنت الله ذو كرم لا إله إلا الله أنت الحق ذو قدم أنت الله ذو كرم لا إله إلا الله أنت البر ذو نعم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إنا لله وإنا إليه راجعون. waxaa maanta si rasmi ah iilka loo dhigay allaha u naxariistay sheekhii caalimka ahaa mid ka mid ah tiirarka cilmiga iyo dacwada islaamka ee Soomaaliya kaasi oo cilmigiisa ay ka faa'iideen kumanaan arday ah kuwaasoo ku sugan gudaha iyo dibaddaba. allaha u naxariistay Sheekh Cabdullaahi Canshuur Shuuriye sheekhu waxa uu gutay waajibaadkiisii diiniga ahaa muddadii uu noolaa. allaha u naxariistay Sheekh Cabdullaahi Canshuur oo ka wareegay daartan adduunyada isla markaasina u wareegay daarta barzaqa waxaa lagu aasay duleedka magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya meel aan sidaas uga fogeyn masjid sheekh uu dhidibada u taagay. يا عبد الله ابن إلحي اذكر العهد الذي خرجت عليه من دار الدنيا إلى دار الآخرة وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. looma kala harin aaska sheekha oo dadweyne aad u fara badan kuwaasoo ahaa ahlu cilmi ayaa kasoo qayb galay aaska iyo janaasada sheekha. ugu horeyn janaasada sheekha waxaa lagula tukaday masjidka Mucallim Dhiblaawe magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana salaadii janaasada bixiyey sheekha weyn ee faqiiha ah ee Sheekh Cabdullaahi Minhaaj. الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. qaar ka mid ah culimadii kasoo qayb gashay aaska allaha u naxariistay Sheekh Cabdullaahi Canshuur ayaa sheegay in sheekhu uu ka tegay dhaxal aan la hilmaami karin iyagoo eebbo uga baryay in jannadii firdowsa ahayd sheekhu uu ka waraabiyo. كرامديس واسك عدها إن شاء الله تعالى جنة الله هو كل ميو من وناك سنة حرير وين أسكال هاجر كتاب كسي وإيمان جري جزاه الله خيرا إن شاء الله تعالى وحي عن شيخ لها مشايخ ذي أشياكتي شيخ الله حريص إنما يخشى الله من عباده العلماء أسئله ليه والذين أوتوا العلم درجات وهي علامة دي سوي كموتها إن شاء الله تعالى الشيخ إن شاء الله جنة الله هو كل ميو معيس الله نلقو خاتمة الله نوصوبي لما دافع الله نوصي انت أسوون مد إن شاء الله جنة الله هو كلمي. أنتي سيد علماء إجاه الرئيس أي شيئان وتعسية تيران يلا والعدوين بدن ومسلمين تأصيبتي إلهي سبحانه وتعالى قضيه سا وانكوغا نحصلنا هاي نفتي إذا إيوه مسلمين تدمان تود meel walba ay joogaan gaar ahaan shacabka Soomaali gaar ahaan culamo diinka dhamaantood si gaar ah ahladii iyo qoysaska gaarka ah oo ka tagay ayaan sheekha uga tacsiyeynaa rumaantii ahadka tacsiyeynaya iyo midka loo tacsiyeynaa macnaheedu ma ahan inay adduunyo ay ku sii waarayaan laakiin waa sunnada diinta ayaa sida ah shariicada ayaana amraysa marka ilaahay subxaanahu wa tacaala shaykhana waxaan uga baryaynaa inuu iska cafiyo sayi'aadkiisa uu tirtiro xasanaadkiisana uu ziyaadiyo dadka muslimiinta ah oo tajhiisiyay oo howlahoodii u soo daayana ilaahay subxaanahu wa tacaala ajri cadiim oo aad u weyn badan oo ka siiyo. maanta Soomaaliya waxaa gashay nusqaan xoog leh waayo waxaa la yiraahdaa mawtul caalimi wa mawtul caalam ama mawtul caalimi thulmatun la tusad fangar aan cid daboolaysa la arkin waaye sheekhani jaliilka ahaa suufiga ahaa la dhihi jiray Sheekh Cabdullaahi Canshuur ilaahay ha u naxariisto waxaan alla agtiisa u rajaynaynaa dadaalkiisii sheekha
in ilaahay uu ka abaalmari doono maadaama ilaahay uusan dayicin ajra man axsana camalan. raajicuun waa xadath cadiima, waa dhacdo weyn, waa kurbo iyo murugo weyn. waxaanu nafteenna, ahalka, asxaabta, dalabatulcilm, qaraabada, guud ahaan Soomaaliya oo dhan aan uga tacsiyeynaynaa geerida xanuun kale ee ku timid sheekheennii الشيخ العالم الفاضل sheekh cabdullaahi cunshuur oo lagu yaqiinay runtii muddo ka badan 50 sano inuu diinkan u khidmaynayay. dalabo badan uu soo saaray, mashaayikh fara badan oo mudarrisiin ah uu soo saaray. marka sheekha ilaahay waxaan u weydiinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ka dhigo midkii adduunyadan ka raaxaystay. ilaahayna subxaanahu wa tacaala rawda min riyaadi aljanna qabrigiisa allah uga dhigo, dembi dhaaf waasicana sheekha allaha siiyo. شيخنا شيخ عبد الله صاحب الوفاة والجنازة runtii wuxuu ahaa macruuf ladaa kulli mu'minin sunniyin hayuurin. waxaan ku xasuusannaa waddankan dadkii hadda raggaas taariikhdooda iyo umuurtooda soo marana waa uu ahaayo aad uga warqabay. waxaana uu ahaa ninkii ugu cadcaddaa xilligiisa badbaadinta caqiidada iyo u dakanoobidda diinka. sheekh cabdulaahi wuxuu ahaa nin mutafannin ah oo culumta islaamka xaawi ku ah xaqiiqdii, nin hayuura, sabuura, zaahida. sifaad fiican oo lagu ammaano waa uu iska lahaa. kolle wanaaggiisana markhaati waxaa ugu filan maanta ummadda uu isu keenay. oo haba yaraatee qole la soo shukaamiyey aysan jirin. xag ilaahay qof walba uu ka taxaaban yahay. jazaahu allahu khayra aljazaa. run ahaantii aad iyo aad iyo aad uu ummaddan abaal ugu leeyahay. waa xaqiiqdii nibaraasoo wakhtigiisa ah laambad ifiday, wax badan oo culaysyo ah oo jiray. xilli aan dadka qaar war badan aysan ka haynin waxaa jira, qaarkoodna si kaleba ay wax u haystaan. wuxuu ahaa nin u dakanoobay. wuxuu ahaa in badan sida aan ka warqabno marar badan nin la isku dayay xitaa fikirkaas in loo dilo. ugu dambeyntii allah u naxariistay sheekh cabdullaahi canshuur waxaa lagu sagootiyey oo xabaabtii ka soo qayb gashay aaskiisa ay ku saadeen xuska eebbe. هو